aynu ku bilownay labadii maalmood ee la soo dhaafay Soomaaliya waxaa ka taagnaa xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble uu shaqo joojin ku sameeyay agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin madaxweynaha Soomaaliyana uu arrintaasi ka hor yimid shalay gelinkii dambe iyo xalay waqti dambaba waxaa Muqdisho ka socday kulamo kala duwan ra'iisul wasaare Roble ayaa kulamo la qaatay taliyaasha ciidamada iyo madaxda maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaana mar kale la faray inay baaris dhab ah ku sameeyaan kiiska Ikraan Tahliil haddaba arrintan maxay uga dhigan tahay siyaasadda Soomaaliya wariyaha VOA ee Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle ayaa su'aalahaasi iyo kuwo kale waxa uu weydiiyay Professor Liban Ciise oo daraasaadka sare iyo qaanuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho ahaantii waxaan isleeyahay arrintani waxa weeye dadka in badan ama siyaasiyiinta ama hoggaanka dadka hor socda waxay is-ilowsiiyaan xaaladda dalka uu ku jiro iyo maxaa la yiraahdaa qaabka nidaamkeena siyaasadeed oo hadda uu ku jiro dalku wuxuu marayaa xaalad kala guur ah hay'adaha dastuuriga iyo shuruucda oo qadiya ah dastuurkii on dhamaystirnayn ama meelaha faraha badan dhamaystir u baahan maxkamadii dastuuriga oo kala saari lahayd haday khilaafaad yimaadaan oo meesha ka maqan hay'ado badan oo dastuuri ah ayaa meesha ka maqan marka waxa hawsha doorashooyinka hagaya sida la og yahay heshiis siyaasadeed ama political agreement oo lagu gaaray doorashada dadban in la galo ayaa jira marka arrintaas badiba waxa ka dhasha maadaama waxaan heshiis ay tahay aysan ahayn shuruuc cad oo mechanism la yaqaan leh hay'adad daba jooga leh hatta sharciga doorashada yani oo baarlamaanka u baasgaray aan lagu dhaqmaynin waxaan dadban ay yihiin waxa ka dhalanaya khilaafaad siyaasadeed waxa ka dhalanaya awoodihii oo la isku riixo ama la kala jiito waa waxa hadda keenaya marka waxaan isleeyahay dhinac kastaba wuxuu daliishanayaa qodobo ka mid ah dastuurka ayuu daliishanayaa waana markaad aragto qodobkaas ma dhinaca uu daliishanayo waa dhinac baa ka saxa ka kalena markaad aragto dhinac baa ka saxa khilaafkan labada xafiis gaar ahaan ee ka dhalatay arrinta Ikraan iyo shaqo joojinta Fahad agaasimihii NISA sidee u saameyn doontaa doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhacay jireen markaad fiiriso jadwalada soo baxa saameyn xoog leh ku yeelanaysa haddaan khilaafkan laga gudbin oon la xalin sababtoo ah nidaamkan maadaama uu yahay heshiis siyaasadeed waxaa mar walbaba niyad sami iyo isku soo jiidid ayaa marxaladan looga gudbi karaa ana qodob ku taagan iyo ana qodob ku taagan looguma gaari karo haddii qadiyadu sidaa noqoto dib u dhac waxay ku imaanaysaa doorashooyinkii dhici lahaa waxaa imaanaya isku kalsooni la'aan oo hay'adihii fulin lahaa oo hab maamul iyo hab amni heer amniba yani yaa isku jahawareed ka dhacaya sababtoo ah waxa weeye dhinacyadii waxay kala wataan taliyaal kala duwan iyo khilaafaad kala duwan marka taas marka waxa dib u dhac weyn ayay ku ridaysaa marka waxa laga yaabaa doorashadan inay ilaa sanadka dambeba gaarto haddaanan arrimahaas meel la isla dhigan lagu heshin waxa la isku hayo waa ammaanka markaad fiiriso gaar ahaan agaasimihii NISA iyo ciidamada marka Soomaaliya ammaanka ogtahay iyo dagaalo ku furan amniga si u saameyn kartaa arrintan amniga run ahaantii saameyn ayay ku yeelan kartaa sababtoo waxa weeye hadda waxaa loo wada joogay xagga doorashada amnigeedii iyo amnigaas kala dhanba waxa ay ahayd prime ministerka iyo ajiisadii inay iyagu ay hogaamiyaan waxa ugu muhiimsan inay intaa noqoto laakiin arrintan gabadhan ayaa soo baxday oo run ahaantii la sheegay inay la dilay iyo lama dilin iyo la isku hayo marka qadiyada noocaas ah inkastoo hay'adda sirdoonka dhimashada xaqiijisay maya xagga shayhada dhimasho ayay xaqiijisay dhinacyadii kalena waxay sheeganayaan weli waan ka shakisanahay marka arrintaa waa arrin u baahan xuquuq muwaadin ku xiran una baahan iskeed in oo looga dhigo wax hortabin leh oo goonideeda laakiinse waa in aysan saameyn ay ku yeelan wax la yiraahdo doorashadii iyo hab u socodkeeda iyo ammaankii guud la'aan haddii hay'adihii ammaanka ka shaqaynayay iyo taladooda iyo meeshay talada ka qaadan lahayd muran uu soo galo
wuxuu noqonayaa qofkii yuu amar ka qaataa taliyayaashii hadda wareer iyo yani iyay la shaqeeyaan hadday sirdoonka iyo sirdoonkee la shaqeeyaan marka waxay noqonaysaa meesha arrimahaas xagga amnigii nafteeda iyo wada shaqayntii ayaa wuxuu soo gelayaa khalal weyn soo gelaya mar kastoo dalku doorasho gala muddakhalaadkana dhammaado dhaqan siyaasadeed la bartay waa inay isqabtaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha maxay sababta ugu weynatanay mar walba u timaado waxay badiba ay ku timaadaa dadka yani maadaama awoodaha mas-uuliyiinta aysan aad u kala xadidnayn laanna waxaa weeye dastuurka kan waxa uu sameeyey awooddii waa la baahiyey maadaama la baahiyey hal dhinac kuma urursana maadaama la baahiyey oo laisku dheelatiraayo iyadiina hay-adihii isku dheelatiraayey iyo hay-adihii kontarooli lahaa ee haddii dhinac qofkood uu ka weexdo mise hay-adii ay ka weecato oo hay-adihii dastuuriga ahaa sida maxkamadda dastuuriga maadaama aysan joogin shuruuc oo iyo hay-adihii dastuuriga wakhtigoodina uu dhammaaday waxay u baahan tahay marka in aad loo fahmo siyaasiyiinta ay aad u fahmaan waxyaalaha in heshiis siyaasadeed ayaa lagu jiraa marka wadahadal iyo isku tanaasul ayuu xalku marnaba ku jiraa marna kuma jiro isku adeegsiga awood sharciyeed sababtoo ah sharciga markaad fiiriso mid kastaba dhinac ayuu ka qaadanayaa marka taasna yani waxay u baahan tahay ilaa ay saldhigato waxay u baahan tahay maamul isku adeegsan kara ma aha labo midda kale waxay ila tahay doorashada in degdeg loo galo ayaa noqon kara xalka ugu muhiimsan si uu u soo baxo hoggaan cusub oo suuro geliya in laga baxo meertadan iyo ismaandhaafka siyaasadeed marka inaysan marnaba ay samayn midda saddexaad ugu dambaysaan isleeyahay waxa weeye in la ogaado inay lama taabtaan tahay ama ay noqoto xasiloonida iyo amniga iyo qori isku dhiibka awoodda dalka inaysan marnaba aysan gorgortan aysan gelin marka khilaafaadka siyaasiga iyo isku jiidashada awoodda inaysan dhalin marka saddexda qodob haddii aad loo dhowro ana waxay ila tahay waa waxyaalaha keeni kara in lagaga gudbo arrinta kale wixii kale ee imaada ama arrimo soo baxa ama ku tacalluqa muwaadinna iskeedii hay-adaha garsoorka iyo hay-adaha ku shaqada leh in ay u qumaan laakiinse aysan caqabad ku noqon geedi socodka yani marxaladan kala guurka kaasina wuxuu ahaa Professor Liibaan Ciise oo daraasaadka sare iyo qaynuunka caalamiga ah ka dhiga jaamacadda Muqdisho wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Cabduqaadir Maxamed Cabdulle haddii aad ku cusub tahay fadlan channelkan subscribe saar calaamadda gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafiyo lana wadaag saaxiibada haddii aad faalo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi